wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda Somaliland Cabduul Sheekh Cabdullaahi Suufi oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka hadlay go'aamadii ay dhawaan soo saareen xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland waxa uuna ku tilmaamay kuwa sharciga baalmarsan sidoo kale wasiirka wasaaradda isgaarsiintu waxa uu sheegay in go'aamadaasi ay dhaawacayeen dawladnimada Somaliland ay soo dhisaysay 30 sanadood iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee Somaliland ka hirgalay arrinka wada hadalku wuxuu yaalaa halkii ay dhigeen hoggaanka xisbiyada mucaaradka oo ah inay xidheen iyagu albaabkii ilaa ay furaan oo ay si cad ugu sheegaan bulshada inay ka noqdeen go'aamadii xaydaabka sharciga ka baxsanaa ay ku dhawaaqeen go'aanka wada hadalku halkaas u yaalaa iyagana ku xidhan tahay oo ay u taalaa wada hadalkaas inay ku soo noqdaan xaydaabka sharciga ah wasiirka oo hadalkiisaasi wata waxa uu u jid sameeyay arinta la xidhiidha muddo kordhinta ee xukuumadda uu ka tirsan yahay loo diidan yahay si guud dastuurka waxa ka hadla muddo kordhinta laba qodobka 8aad oo ka hadla muddo kordhinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo qodobka 24aad oo ka hadla muddo kordhinta golaha wakiilada oo labaduba ay sheegayaan hadii ay duruufo yimaadaan nabadgelyo in dib loo dhigi karo oo golaha guurtidu uu waajib ku yahay in ay iyagu kordhiyaan tixgeliyaan muddada dhibkaasi u jiro horena u dhici jirtay iyagoo golaha guurtidu labada qodob ka duulaya ugu soo kordhiyay madaxweynayaal hore sidoo kalena u kordhiyay golihii wakiilada kan ka horeeyay muddo 11 sano ku dhow waxa cusub ee muddo kordhintani ay socotay waxa weeye in xeer uu cadeynayo muddo kordhinta hadii ay dhici weydo doorashada madaxtooyadu xeerkaasi waa xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 19 2020 qodobkiisa 6aad faqrada 4aad waxay oranaysaa hadii doorashooyinka madaxtooyadu ay cadaato in aanay ku qabsoomi karin waqtigii loo asteeyay arrimo farsamo awgeed ama arin kasta oo ka baxsan xaaladaha ku xusan qodobka 8aad iyo 24aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland waxa go'aan ka gaaraya waqti muddo xileedka loo kordhinayo golaha guurtida oo la tashanaya komishanka iyo doorashooyinka qaranka sida qodobkaasi uu sheegayo go'aanka waxa leh golaha guurtida leh waa xeer ay ansixiyeen labada gole baarlamanku madaxweynuhuna uu ku soo saaray digreeto hirgelin oo ka dhigan in xeerka sharcinimadiisu ay dhameystiran tahay daba xeerkaasi wuxuu qeexayaa cidda leh go'aanka gaaraysa oo guurtida iyadoo la tashanaysa komishanka qaranka sida hoggaanka xisbiyada mucaaradka ay ku doodaan waxay yiraahdaan muddo kordhin aan la isla ogolayn ama aan laga wada tashan xalaal ma noqonayso marka la eego qodobkan cidda kaliya ee go'aanka leh waa golaha guurtida oo tixgelinaysa la tashiga komishanka qaranka taasina way dhacday oo qoraalkii ka soo baxay komishanka qaranku wuxuu ahaa talada ay u gudbiyeen guurtidu ay tixgelinaysay marka muddada iyo qaabka loo kordhinayo intaba guurtida leh hadaba marka hoggaanka xisbiyada mucaaradku ay doodooda ku fariisinayaan muddo kordhin aan waxba laga weydiin xalaal ma noqonayso halkee ayay sharciga kaga jirtaa anigoo og in hoggaanka mucaaradku ay sharcigaadu yaqaanaan inay leeyihiin la taliyaal sharci oo fara badan oo waxa weeye talo ku soo kordhinaya waa su'aal taala xeerka guud ee doorashooyinka diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 19 2020 la soo jeediyay waliba cidda soo jeedistayna ay ahayd xilliga guddigii doorashooyinka qaranka labada golana isku raaceen marka halka waxa ka cad in dooda iyo hadalka ay xisbiyada mucaaradku leeyihiin muddo kordhintu xalaal ma aha inaanay sharci ku fadhin mar kale waa kan wasiirka oo hadalkiisa sii wata hadal ay in badan ku soo celceliyaan hoggaanka iyo madaxda xisbiyada mucaaradku ay leeyihiin madaxweynuhu cid walba uu diiday erga kasta loo diray madaxweynuhu cidna waa aqbali waayay
كوبي صدق كيستنا ودنكو سومال عن شرتي قرن كانوا تابق لي واحد لديسي هيدا الدولة جاي عصر جا ما واحد ليرا political institutionist وكو قطمات ديمقراطية دي ما ملوناك يضع حل كلا كلوري كرو عاد شعبك أو بحيو سيدا قاعد حيرك ضلك سيدا كلام مدة واحد لديسي لأنه هرمريني إسلام مركال هير جليني حيرك يا شروع ده ضلك يضع أن لان هاي لبق جرا كلا سرية ومد أي تهاي شقدودين حيرك هرمريان حيركاس وجدد الله سمين أيام الله هرمريني وحوي إن أي هجان إسلام مركاي معمولان حكمية أنها بدقن كسياسي جاء ما واحد ليرا political behavior هل كده قال لا مدحينه وعدك كوه لي لابد يكون يتدبير تمنكي نوفمبر 18 دي ان بقول كي بشن كونتون دبيع 19 وكوه لي وحوها سرينta sharciga shantii sano madaxweynuhu xilka hayay waxa uu ka shaqeynayay hirgelinta halku dhaga ku helay codka waxa muuqata in Soomaaliland ay sharciga iyada oo raacaysa dunida casriga ah ay shuruuc farabadan sameysay dejisay isla markaana hirgelisay laguna socdo dadka lagu xukumo waxa badan la isugu hor yimidna lagu kala saaro dawladnimada casriga wali lama arag sharci ergo laga galo madaxda mucaaridku waxay ku soo noolaayeen wadamada horumaray qaarkood Scandinavian-ki joogeen qaar waxay joogeen Yurubta kale iyo Ingiriiska qaarkood Mareykanka ka yimaadeen ilaa imkan ay joogaan bal ha noo sheegaan meesha sharci ergo laga galay Kenya inoogu dhow maalin dhaweey doorasho ka dhacday murashixii laga badiyay waxbuu tabtay maxkamadda sare u tagay dacwad baa la qaaday go'aan bay soo saartay sidii bay ku hirgashay aqoonyahanka iyo madaxda iyo hormuudka mucaaradka waxaan weydiinaynaa weli ma aragteen Mareykanka oo in ka soo qaadanay in badan qaab dhismeedka dawladdeena haday noqoto nidaamka aynu ku socono dhinaca fulinta iyo sharci dejintaba bali ma aragteen meel ergo loogu dirayo madaxweyne Biden iyo madaxweynihii ka horeeyay ee Trump markay noqoto doorashadii 2020 codkii madaxweynimada dhacay iyo tii maalintii dhaweyd dhacday ee lagu dooranayay labada aqal ee baarlamaankooda waxa lagu kala saaray waxa weeye sharci iyo maxkamad cidii heshayna way heshay cidii sharciga ku yeedayna sideeday ku qaadatay waxa muuqata in hoggaanka mucaaridkeena ay rabaan qarda jeex aan sharci ku fadhiyin iyagoo in badan ku faana waxaan soo dhisnay qaranka waxaad soo dhisayseen maalinta aad dantiina ka weydaan ma mid aad isku dayeysaan bayna tagadaamisaan